qisadani waa mid mudan waana qaadasho, waana mid murugo iyo farxad labadaba wadato, waana dhacdo naadir ku ah adduunka ama aana dhicin. ma jiraa qof idinka mid ah hal daqiiqo xitaa inuu dhimanayo habeenka arooskiisa? jawaabtu waxay u badan tahay maya. dhammaanteen waxaa noo muuqato xilligaasi farxadda iyo damaashaadka arooska. qisadani waxay ka dhacday magaalada Aba oo caasimadda gobolka Ezer ee boqortooyada dalka Sacuudiga Carabiga, waxaana soo tabiyey Sheekh Muxsin Axmedi. qisadani waxay ku dhacday gabadh la oran jiray Caaisha oo u dhalda dalka Sacuudiga. markii ay soo tugatay salaadii maqrib, make-upkii marsatay iyo waxyaabihii kale ee loo doonayay inay isku qurxiyaan caruusadda, waxay xiratay oo dharkii arooskeeda inay hor tagto martida. Caaisha waxay maqashay aadaankii salaadii cishaa, waxayna ogaatay inay weysadii ka burtay. Hooyad, waxaan u baahanahay inaan weysaysto aan tugto salaadii cishaha. hooyadii way la yaabtay, waxayna ku tiri, miyaad waalatay gabadheedii? martida oo dhan adiga iyagu sugayaan si ay kuu arkaan. maxaan lagu samaynayaa? maxaa laga samaynayaa? make-upku wuu kaa dhaqmayaa dhammaantiis haddii aad weyse qaadato. hooyada, waxaan kugu amrayaa inaad weyse qaadka aad joojisid. waxay intaa ku dartay, wallaahi haddii aan intaas samaynin waxaan kaa xanaaqayaa. Caaisho waxayna ku jawaabtay, wallaahi hooyo, halkan kama tagayo anigoo aan tukan salaadii cishaha. waxayna intaa ku dartay, hooyo, waxaa waajib ah inaad ogaato anigu macbuud mid la abuuray intaan ku caasiyo noole oo dhan abuuray. hooyadii waxay ku jawaabtay, maxaan dhehaynaa martideennii haddii ay ku arkaan xafladda adiga oo bilaa make-up ah? ma cajibi doontid indhahoodii, wayna kugu qoslayaan. gabadhii baad ku jawaabtay, hooyo, waxaad ka walacsan tahay inaan cajibi doonin indho kuwa la abuuray. ka waran midka aniga i abuuray. anigu waan walacsanahay maxaa yeelay haddii aan salaada tukan inuu alle ku farxin waayo aragtideeda. Caaisho waxay bilowday inay weyse qaadato, waxayna isku dhaqday dhammaan wax waliba oo lagu qurxiyey si ay loo qanciyo. intaa kadib waxay xiratay salaadii. markii sujuudii koowaad markii ay samaysay, Caaisho ayada oo ku jirta nafta daysay, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxay ahayd markeedii ugu dambeysay nolosha. way dhimatay Caaisho iyada oo sujuudayso. ma jiro dhammaad ka weyn inaad dhimato adiga oo haya amarkii Alle. qisadani waxaa soo tarjumay oo la qoray al-Ustaad Cusmaan Maxamed Faarax.